dowladda Turkiga gaar ahaan waaxaha soo saaraya agabka ciidamada kala duwan ee dowladda Turkiga ay adeegsadaan ayaa rajo weyn ka qaba in sanadka cusub ee 2021 ay soo gabagabeeyaan ku dhawaad 5 mashruuc oo waaweyn kuwaas oo ah soo saarista hubka dunida ka yaabinaya oo lagu farsameynayo gudaha dalka Turkiga. Waxaana hadda dowladda Turkiga u muuqataa dal la tartamaya dalalka kale ee quwadaha leh sida Ruushka iyo Mareykanka oo hubkooda soo saarta. Maalin walba shirkadaha tiknoolajiyadda ee dowladda Turkiga ayaa soo bandhigaya mashruuc cusub oo gantaal, diyaarad, markab ama sidoo kale kuwa darooniska ah oo iyaga ay soo saarayaan, kuwaas oo leh qaabab ay kaga duwan yihiin kuwa dalalka kale ee caalamka ay soo saaraan. Aan eegna mashruuca koowaad ee la doonayo inuu soo gabagaboobo 2021 waa TCG Anadolu. waa markab weyn oo samayntiisa hadda ay wadaan injineerada dowladda Turkiga. waa markab la doonayo in uu boos weyn uu u buuxiyo ciidamada badda ee dowladda Turkiga. markabkani wuxuu noqon doonaa hoggaanka ciidamada badda ee dowladda Turkiga oo aan lahayn markab diyaaradaha ay ku duldegi karaan. markabkan ayaa dhirirkiisa lagu sheegay inuu gaarayo 231 mitir halka ballaciisa uu yahay 32 mitir, waxaana uu markabkani uu qaadi karayaa 27,000 oo tan oo culays ah. waxaa la filayaa inuu ka mid noqdo mashaariicda qalabaynta ciidamada dowladda Turkiga ee la soo gabagabeynayo sanadka cusub ee 2021. markabkani ayaa la sheegay inuu leeyahay 1,700 oo sariir. waxaa sidoo kale ku dhex yaala markabkani cisbitaal ay yaalaan 33 sariir oo casri ah oo tayo leh. waana markabka ay ku yaalaan 6 goob oo diyaaradaha helikobteriska ay ku duldegi karaan, maadaama uusan lahayn goobaha diyaaradaha ay ka duulaan. waxaa la sheegay sidoo kale inay ku duldegi karaan diyaarado, waxaana loo diyaariyey in diyaaradaha qumaatiga u kaca gaar ahaana kuwa loo yaqaano F-35 inay ku duldegi karaan markabkani. waana mid ka mid ah mashaariicda dowladda Turkiga ay doonaysa inay soo gabagabayso 2021. mashruuca labaad waa gantaalka dunida ka yaabinaya ee loogu magacdaray Agya. awoodda gantaalkani waa mid mar kale dunida ka yaabisay. waa gantaal awood u leh inuu laba u kala jebiyo maraakiibta badda isticmaalaya haddii lala eegtay xilliga ay biyaha dul marayaan. shirkadaha iyo injineerada dowladda Turkiga ayaa bilaabay dhismaha gantaalkani muddo hadda laga joogo 12 sano. waana mashruuciisa mid uu soo bilowday sanadkii 2008. waa mid ka mid ah gantaalada ugu culus dunida oo tijaabadii ugu horreysay laga qaaday sanadkii 2013. tijaabadaasi oo noqotay mid lagu guulaystay. sida qorshaha uu yahay, Turkiga ayaa gantaalkaasi doonaya inuu ku weeraro ama uu isaga difaaco maraakiibta gujisyada ah ee adeegsanaya badda hoosteeda. culayska gantaalkan waxaa lagu sheegay inuu yahay 533 kilogram, laakiin gantaalkan ayaa si fudud oo dhib la'aana u dhex gooshi karaya badda dhexdeeda. markabkii ama gujiskii lala egtaana lagama yaabo inuu sii jiro ama uu sii socdo oo uu aado goobta uu doonayo, sababtoo ah waxaa lagu sheegay gantaalkan waxa uu burburinayaa dhammaanba maraakiibta ama gujisyada. haddii marbar tilmaameedkiisa la tusiyaana waxaa la sheegay inuu leeyahay awood uu ku raaraaco markabkaasi haddii uu xawaareeyo goob kastaana uu cararo, sababtoo ah waxaa la yidhi waxa uu ursanayaa urta markabka kadibna waxa uu kaga daba tegayaa goob kasta uu tago markabka ama gujiska. waana mid ka mid a mashaariicda Turkiga uu doonayo inuu soo gabagabeeyo 2021 laguna wareejiyey ciidamada ammaanka ee dowladda Turkiga. mashruuca saddexaad waa gantaalka loogu magacdaray Atmaka. isna 2021 ayaa la doonayaa in ciidamada dowladda Turkiga lagu wareejiyo. gantaalkani ayaa wuxuu noqon doonaa gantaalkoodii ugu horreeyay ee dhanka badda ah oo ay sameeyaan injineerada badda ee dowladda Turkiga. wuxuu buuxin doonaa booska gantaalka Harpoon oo ah gantaal ay hadda ay adeegsadaan ciidamada badda ee dowladda Turkiga oo ay kasoo iibsadeen shirkadda Boeing ee Mareykanka laga leeyahay. waxayna 2021 kadib maraakiibtani oo dhan iyo gujisyada ay isticmaali doonaan gantaalkani lagu farsameeyay gudaha dowladda Turkiga. gantaalka Harpoon ayaa waxay kusoo iibsan jireen dhaqaale aad u tiro badan kaasi oo jeebkooda ka baxaya, laakiin iminka baaqi ayay lacagtaasi jeebkooda ku ahaan doontaa Turkida. dhowaan ayay soo bandhigeen gantaalkani muddo hadan laga joogo 5 bilood. matoorka gantaalkan ayaa sidoo kale noqon doona mid ay injineerada dowladda Turkiga ay soo saareen. qaab dhismeedka gantaalkani oo Turkiga lagu farsameynaya marka la eegana lama mid ahan kuwa kale oo waxaa la leeyahay waa sida diyaaradda oo kale oo waxa uu leeyahay raadeer iyo matoor kaasoo wax walba ay ka hagi karaan dowladda Turkiga. sidoo kale si lamid ah gantaalkii ka horreeya gantaalkani lagu magacdaray Atmaka waxa uu leeyahay hadaf. haddii meesha loogu talagalaa la aadiyana kama uusa soo laabto, sababtoo ah waxaa la yidhi wuxuu isticmaalayaa GPS. waana midda keenaysa in uu soo burburiyo goobta bartilmaameed looga dhigo oo uusan kaga leexan goob kale.
gantaalkani waxaa la sheegay in 190 kilomitir meel ka fog uu wax ka toogan karo. 5 bil ka hor ayaa sidoo kale tijaabo lagu sameeyey 220 kilogaram culeys ah ayaa la sheegay in uu gaarayo, waxaana loogu talagalay in marka uu u dhowaado hadafkiisa inta uu kor u kaco kadibna uu kasoo duldhaco goobta uu doonayo inuu bartilmaameedsado. waana mid ka mid a mashaariicda Turkiga uu doonayo inuu soo gabagabeeyo 2021. mashruuca afraad waa mashruuc kale oo cajiib ah, waa mashruuca gantaalka lagu magac daray Karog. waa gantaal sida hoobiyaha oo kale galabka laga ridi karayo, looguna talagalay in uu burburiyo taangiyada. gantaalkani 16 kilogaram ayuu ka qafiifsan yahay kuwa kale, dhirirkiisu waa 110 sentimitir. marka la tuurana isna hadafkiisa toos ayuu u abaaraa, oo xitaa wuxuu raacayaa hadafkiisa haddii goobta loogu talagalay uu ka dhaqaaqo. waxay is shabahaan gantaalka kaleento ee lagu magac daray Javelin, oo ah mid loogu talagalay in lagu burburiyo taangiyada, kaas oo garbaha laga tuuro islamarkaana Mareykanka u adeegsado. gantaalkanina waxaa la doonayaa in dhismihiisa iyo mashruuciisa lasoo gabagabeeyo 2021. mashruuca shanaad ee ugu dambeeyana waa mashruuca diyaaradeed ee lagu magac daray Akinci. diyaaradani waxaa la doonayaa in lagu sameeyo gudaha dalkaasi Turkiga. diyaaradani waa mid dadka Turkida ay indhaha u wada taagayaan, waa diyaarad kale oo daroon. si aan u ogaano awoodda diyaaradani daroonta ah ee wax burburinaysa, aan la barbardhigno diyaaradaha Turkiga darooniska ah ee dunida ka yaabiyey ee loo isticmaalay dagaaladii Syria, Liibiya iyo sidoo kale Azerbaijan. waa diyaaradda Bayraktar TB2. dhowaan 3 ka mid ah diyaaradaha Bayraktar TB2na waxaa dalbaday oo doonaya inuu iibsado dalka Tunisia. Bayraktar TB2 150 kilogaram oo culeys ayay qaadi kartaa, halka diyaaradda Akinci la sheegay in ay qaadi doonto 1350 kilogaram. waxaana halkaasi aad ka ogaanaysaa in 10 jeer ay ku jibaaran tahay diyaaradda Bayraktar TB2. Turkiga ayaa ilaa haatan 2 diyaaradood oo kaliya ka sameeyay diyaaradan, iyadoo si toos ah loogu guuleystay tijaabadiisa. waxaana la sheegay diyaaradan inay sidoo kale qayb ka tahay mashruuca Turkiga uu doonayo inuu 2021 uu soo gabagabeeyo, laguna wareejiyo ciidamada ammaanka ee dowladda Turkiga. dowladda Turkiga gaar ahaan waaxaha soo saaraya agabka ciidamada kala duwan ee dowladda Turkiga ay adeegsadaan ayaa rajo weyn ka qaba in sanadka cusub ee 2021 ay soo gabagabeeyaan ku dhawaad 5 mashruuc oo waaweyn, kuwaas oo ah soo saarista hubka dunida ka yaabinaya oo lagu farsameynayo gudaha dalka Turkiga. waxaana hadda dowladda Turkiga u muuqataa dal la tartamaya dalalka kale ee quwadaha leh sida Ruushka iyo Mareykanka oo hubkooda soo saarta. maalin walba shirkadaha teknoolajiyadda ee dowladda Turkiga ayaa soo bandhigaya mashruuc cusub oo gantaal, diyaarad, markab ama sidoo kale kuwa darooniska ah oo iyaga ay soo saarayaan, kuwaas oo leh qaabab ay kaga duwan yihiin kuwa dalalka kale ee caalamka ay soo saaraan. aan eegna mashruuca koowaad ee la doonayo inuu soo gabagaboobo 2021. waa TCG Anadolu. waa markab weyn oo samayntiisa hadda ay wadaan injineerada dowladda Turkiga. waa markab la doonayo in uu boos weyn uu u buuxiyo ciidamada badda ee dowladda Turkiga. markabkani wuxuu noqon doonaa hogaanka ciidamada badda ee dowladda Turkiga oo aan lahayn markab diyaaradaha ay ku duldegi karaan. markabkan ayaa dhirirkiisa lagu sheegay inuu gaarayo 231 mitir, halka ballaciisa uu yahay 32 mitir. waxaana uu markabkani uu qaadi karayaa 27,000 oo tan oo culays ah. waxaa la filayaa inuu ka mid noqdo mashaariicda qalabaynta ciidamada dowladda Turkiga ee lasoo gabagabeynayo sanadka cusub ee 2021. markabkani ayaa la sheegay inuu leeyahay 1700 oo sariir. waxaa sidoo kale ku dhex yaala markabkani cisbitaal ay yaalaan 33 sariir oo casri ah oo tayo leh. waana markabka ay ku yaalaan 6 goob oo diyaaradaha helicopteriska ay ku duldegi karaan, maadaama uusan lahayn goobaha diyaaradaha ay ka duulaan. waxaa la sheegay sidoo kale inay ku duldegi karaan diyaarado, waxaana loo diyaariyey in diyaaradaha qumaatiga u kaca, gaar ahaana kuwa loo yaqaano F-35 inay ku duldegi karaan markabkani. waana mid ka mid ah mashaariicda dowladda Turkiga ay doonayso inay soo gabagabayso 2021. mashruuca labaad waa gantaalka dunida ka yaabinaya ee loogu magac daray Agya. awoodda gantaalkani waa mid mar kale dunida ka yaabisay. waa gantaal awood u leh inuu 2 u kala jebiyo maraakiibta badda isticmaalaya haddii lala eegtay xilliga ay biyaha dul marayaan. shirkadaha iyo injineerada dowladda Turkiga ayaa bilaabay dhismaha gantaalkani muddo hadda laga joogo 12 sano. waana mashruuciisa mid uu soo bilowday sanadkii 2008. waa mid ka mid ah gantaalada ugu culus dunida oo tijaabadii ugu horreysay laga qaaday sanadkii 2013. tijaabadaasi oo noqotay mid lagu guuleystay. sida qorshaha uu yahay, Turkiga ayaa gantaalkaasi doonaya inuu ku weeraro ama uu isaga difaaco maraakiibta gujisyada ah ee adeegsanaya badda hoosteeda.
culayska gantaalkan waxaa lagu sheegay inuu yahay 533 kilogaram, laakiin gantaalkan ayaa si fudud oo dhib la-aana u dhex gooshi karaya badda dhexdeeda. markabkii ama gujiskii lala eegtaana lagama yaabo inuu sii jiro ama uu sii socdo oo uu aado goobta uu doonayo, sababtoo ah waxaa lagu sheegay gantaalkan waxa uu burburinayaa dhammaanba maraakiibta ama gujisyada. haddii mar bartilmaameedkiisa la tusiyaana waxaa la sheegay inuu leeyahay awood uu ku raaraaco markabkaasi haddii uu xawaareeyo goob kastaana uu cararo, sababtoo ah waxaa la yidhi waxa uu ursanayaa urta markabka, kadibna waxa uu kaga daba tegayaa goob kasta uu tago markabka ama gujiska. waana mid ka mid a mashaariicda Turkiga uu doonayo inuu soo gabagabeeyo 2021 laguna wareejiyay ciidamada ammaanka ee dowladda Turkiga. mashruuca saddexaad waa gantaalka loogu magacdaray Atmaka, isna 2021 ayaa la doonayaa in ciidamada dowladda Turkiga lagu wareejiyo. gantaalkani ayaa wuxuu noqon doonaa gantaalkoodii ugu horreeyay ee dhanka badda ah oo ay sameeyaan injineerada badda ee dowladda Turkiga. wuxuu buuxin doonaa booska gantaalka Harpoon oo ah gantaal ay hadda adeegsadaan ciidamada badda ee dowladda Turkiga oo ay ka soo iibsadeen shirkadda Boeing ee Mareykanka laga leeyahay. waxayna 2021 kadib maraakiibtani oo dhan iyo gujisyada isticmaali doonaan gantaalkani lagu farsameeyay gudaha dowladda Turkiga. gantaalka Harpoon ayaa waxay ku soo iibsan jireen dhaqaale aad u tiro badan kaasi oo jeebkooda ka baxaya, laakiin iminka baaqi ayay lacagtaasi jeebkooda ku ahaan doontaa Turkida. dhowaan ayay soo bandhigeen gantaalkani muddo hadan laga joogo 5 bilood. matoorka gantaalkan ayaa sidoo kale noqon doona mid ay injineerada dowladda Turkiga ay soo saareen. qaab dhismeedka gantaalkani oo Turkiga lagu farsameynaya marka la eegana lama mid ahan kuwa kale oo waxa la leeyahay waa sida diyaaradda oo kale oo waxa uu leeyahay raadeer iyo matoor kaas oo wax walba ay ka hagi karaan dowladda Turkiga. sidoo kale si lamid ah gantaalkii ka horreeyay gantaalkani lagu magacdaray Atmaka waxa uu leeyahay hadaf haddii meesha loogu talagalay la aadiyana kama uu soo laabto, sababtoo ah waxa la yiri wuxuu isticmaalayaa GPS waana mid keenaysa in uu soo burburiyo goobta bartilmaameed looga dhigo oo uusan kaga leexan goob kale. gantaalkani waxaa la sheegay in 190 kilomitir meel ka fog uu wax ka toogan karo. 5 bil ka hor ayaa sidoo kale tijaabo lagu sameeyay 220 kilogaram culays ah ayaa la sheegay in uu gaarayo, waxaana loogu talagalay in marka uu u dhowaado hadafkiisa inta uu kor u kaco kadibna uu ka soo dul dhaco goobta uu doonayo inuu bartilmaameedsado. waana mid ka mid ah mashaariicda Turkiga uu doonayo inuu soo gabagabeeyo 2021. mashruuca afraad waa mashruuc kale oo cajiib ah, waa mashruuca gantaalka lagu magacdaray Karog. waa gantaal sida hoobiyaha oo kale galabka laga ridi karayo looguna talagalay in uu burburiyo taangiyada. gantaalkani 16 kilogaram ayuu ka qafiifsan yahay kuwa kale, dhirirkiisu waa 110 sentimitir. marka la tuurana isna hadafkiisa toos ayuu u abaaraa oo xitaa wuxuu raacayaa hadafkiisa haddii goobta loogu talagalay uu ka dhaqaaqo. waxay is shabahaan gantaalka kaleento ee lagu magacdaray Javelin oo ah mid loogu talagalay in lagu burburiyo taangiyada kaas oo garbaha laga tuuro isla markaana Mareykanka u adeegsado. gantaalkanina waxaa la doonayaa in dhismihiisa iyo mashruuciisa la soo gabagabeeyo 2021. mashruuca shanaad ee ugu dambeeyana waa mashruuca diyaaradeed ee lagu magacdaray Akinci. diyaaradani waxaa la doonayaa in lagu sameeyo gudaha dalkaasi Turkiga. diyaaradani waa mid dadka Turkida ay indhaha u wada taagayaan, waa diyaarad kale oo daroon. si aan u ogaano awoodda diyaaradani daroonta ah ee wax burburinaysa aan la barbardhigno diyaaradaha Turkiga darooniska ah ee dunida ka yaabiyay ee loo isticmaalay dagaaladii Syria, Liibiya iyo sidoo kale Azerbaijan, waa diyaaradda Bayraktar TB2. dhowaan 3 ka mid ah diyaaradaha Bayraktar TB2 na waxa dalbaday oo doonaya inuu iibsado dalka Tunisia. Bayraktar TB2 150 kilogaram oo culays ayay qaadi kartaa, halka diyaaradda Akinci la sheegay in ay qaadi doonto 1350 kilogaram. waxaana halkaas aad ka ogaanaysaa in 10 jeer ay ku jibaaran tahay diyaaradda Bayraktar TB2. Turkiga ayaa ilaa haatan 2 diyaaradood oo kaliya ka sameeyay diyaaradan iyadoo si toos ah loogu guuleystay tijaabadiisa. waxaana la sheegay diyaaradan inay sidoo kale qayb ka tahay mashruuca Turkiga uu doonayo inuu 2021 uu soo gabagabeeyo laguna wareejiyo ciidamada ammaanka ee dowladda Turkiga.